diyaaradaha military ee sida qalabka iyo saayida military kala duwan ee ka degaya gigida diyaaradaha ee magaalada Kiev iyo magaalooyinka kale ee dalka Ukraine waa kuwa aan kala joogsi lahayn. qalabka xuduudaha laga soo daabulayo waa mid aan kala joogsi lahayn. hubka difaaca diyaaradaha ee garbaha laga gano iyo miinooyinka iyo anti-tankiskuna waa kuwa aan dhamaad lahayn. Johnny oo ah macallin hore haatanna ah askari ayaa noo sharaxaya in ay waajib tahay inuu u dhinto dalkiisa marka ay noqoto Ukraine iyo dal kale. mutadawiciinta shacabka ee ku biiraya dagaalka waa tirabeel. madaafiicda aan tirada lahayn ee la isku ridayna waa kuwa lagu jahwareeray tiradooda. halkan kama jiraan waxyaabaha caalamka caadiga ka ah sida waxyaabaha maalin kasta la maqlo ay kamid tahay saxaafadda xorta ah, xuquuqul insaanka, caruurta yaan la dilin, birimageydo iyo waxyaabaha la mid ah. Richard Field oo ka tirsan jaamacadda Cambridge ee Ingiriiska ayaa yiri Ukraine waxaa ka dhacaya tacaddi. dagaal oogayaasha reer Shiishaan ee Al-Qaacidada ahaan jirayna waxay si arxan darro u leynayaan shacabka reer Ukraine. diyaaradaha Ruushku farsameeyo ee MiG-35 ayaa ah laacibiinta ugu khatarsan ee garoomada dagaalka. afayeenka aqalka Pentagonka Nick Sherman waxa ay sheegtay in ciidamada Ruushka iyo ciidamada Ukraine haatan ay yihiin barbaro oo dagaalka sidii la filayay ee degdega ahayd ee Ruushku ku bilaabay loona maleynayay in uu Ukraine ku qabsanayo muddo kooban ayaa haatan biyo qabow lagu shubay. talow NATO ayaa dagaalka toos u soo gashay mise ajnabi ayaa ka barbar dagaalamaya ciidamada Ukraine. haddii aad tuhunkaas qabto waad saxan tahay. ciidamo ka socda wadamada Brazil, Ecuador, Jamaica, Venezuela, Peru, Panama, Costa Rica iyo Chile ayaa si mutadawacnimo uga dagaalamaya halkan. sidoo kale muwaadiniinta dalalka Ingiriiska, Talyaaniga, Belgium, Faransa iyo Ireland ayaa halkan ka dagaalamaya. hase yeeshee dhanka Ruushka ma heli karaa mutadawiciin ama calooshiid u shaqaystayaal uu soo kireystay. marka halkan la joogo Hindi, Bengali, Carab iyo sidoo kale Afrikaan ayuu tahaa. Ruushkuna kuwa oo baahan diyaarna u ah inay naftooda u gubaan lacag darteed. haddaba dagaalka saddexaad ee adduunka laga saadaaliyay inuu dhali karo dagaalka Ukraine haddii uu bilowdo maxaa dhici kara. haddaba daqiiqadan aan kula hadlayo waxaa sare u kacaya qiimaha lagu iibsado shidaalka iyo saliidda. waa hubaal in isbuucii hore iyo haatan saddexlaha saliidda ah uu isbedelay saddex ujibaar qiimihiisii, waxaana uu ahaa $6 ama $5 markii uu bilaabanayay dagaalka Ukraine. haddana dhowr iyo $10 ayaa la siistaa magaalada aan anigu ku noolahay oo ku taala gobolka Galgaduud. ciidamada Ukraine waxaa ka barbar dagaalamaya ciidamo Ingiriis ah, ciidamo Talyaani iyo ciidamo Faransiis ah. dowladaha ugu waaweyn NATO ee midowga Yurub haba ugu badnaadaane waxa ay xuduudda Poland maalin kasta soo gelinayaan shixnado hub iyo u badan rasaas iyo qalab caafimaad. sidoo kale qalabka loo yaqaan helmetiska iyo jaakadaha xabadda celiya ayaa si tirabeel ah loogu soo daabulayaa magaalada Kiev. dagaalku haatan waxa uu ku jiraa jawi qabow, xoogaan xabad joojin ah oo dhexdhexaadin ay wadaan Belarus iyo wadamo ay kamid tahay Romania ayaa jira. hase yeeshee Ruushku kuma qanacsano waxa uuna taagan yahay nidaamka Naaziga ah ee Yurubta u janjeera ee Ukraine waa inaan soo afjaro. halka Vladimir Zelensky madaxweynaha Ukraine uu yiri aanba noqdo qofka ugu horeeya ee dhinta Ukraine calankeedu ma hoos geli doono Ruushka.